guddida qandaraasyada qaranka Soomaaliland ayaa maanta ku dhawaaqay shirkadaha ku guuleystay 8 mashruuc oo loo dhisayo hay'adaha iyo wasaaradaha dowladda kuwaas oo laga hirgelinayo gobolada kala duwan ee Soomaaliland. Furitaankii tartanka 8 mashruuc ayaa waxa ka qayb galay dhammaan xubnaha guddida qandaraasyada qaranka. Munaasabaddan laga dhawaaqay shirkadaha ku guuleystay 8 mashruuc ayaa waxa ugu horeyn halkaasi ka hadlay xubin ka mid ah guddida qandaraasyada qaranka Soomaaliland Maxamuud Axmed Baarcad waxaana yiri shalay wada guddoonada dalka fasax buu ahaa walitinabigii bay ahayd laakiin xafiisan guddida qandaraasyada qaranku fasax muu ahayn shalay oo shalay waxaan u ballansanayn oo isteedii subaxnimo ilaa salaadii casar xafiiskan aad joogtaan u fadhinay in ka badan 120 shirkadood soo xareysay sida mashruuc kala xulidooda ma hawl yara in shirkadahaas oo dhan la eego documentiskooda oo mid walba xaq geesta kala gudoomiyaha qandaraasyada qaranka Soomaaliland Nuux Maxamed Xuseen ayaa waxa uu mid ku dhawaaqay dhammaan shirkadii ku guuleystay 8 mashruuc ee loo tartamay. haddii aan ku horeeyo dhismaha wasaaradda gaadiidka lagu kordhinayo waxaa shorti liskii soo galay 3 shirkadood Taakulo Construction Company, Barre Construction Company, Garyara Construction Company. wuxuu nasiib ku siiyay oo ku guuleystay Taakulo Construction Company. dhismaha lagu kordhinayo cashuuraha bariga ee wasaaradda maaliyaddu maalgelinayso waxaa shorti liska soo galay Hado Construction, Najax Construction. waxaa ku guuleystay Hado Construction. labadii doonyood ee loo tartamayay iyo labadii laash waxaa nasiib ku siiyay oo ku guuleystay Berbera Fiber Glass. kastamka kala baydh dhismaha lagu kordhinayo waxaa ku guuleystay Urban Construction. dhismaha Netfishka lagu kordhinayo ee Berbera ee wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalluumaysiga waxaa ku guuleystay shirkadda Somtarag Dalo. dawada xanaanada xoolaha ee shaybaadhka waxaa ku guuleystay Human Care. dhismaha calafka xoolaha ee Wajaale waxaa ku guuleystay Xaaji Muuse Construction. isbitaalka Burco waxaa ku guuleystay Wadani Construction. Gudoomiyaha waxa halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah mas'uuliyiinta iyo madaxda shirkadaha ku guuleystay mashaariicdan iyo kuwa iyagu aan ku guuleysan. anigoo ah shirkadda Urban Construction Company halkana in badan ka qayb galay tandaro ninba maalin buu guuleysanayaa dhowr jeer hore aan soo dhacnay maantana waanu helay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waxaan u aragnaa hawsh socotaa hawl loo fikiray oo cadaalad waxaan aad ugu mahadcelinayaa sida fairka iyo transparent-ga ay u shaqeynayso guddida qandaraasyada qaranku oo ay aad xilkasnimo weyn u muujinayaan bogaadinaya guddida qandaraasyada qaranka oo si hufnaana oo fair ku jirto u kala saartay shirkadihii soo tartamay. annagu waxaan ka saanay Muqdheer Construction shirkadda la yiraahdo shirkadii laga helay baan nahay waxaan ku qanacsanahay waana u hambalyeynaa cid heshay ilaahay baana mahad iska leh iyo guddida qandaraasyada qaranka waana mahad celinayna. Maxamed Jaamac Umal wararka warbaahinta SBC Hargeysa.